Asalaamu calaykum Xasaan. Maxaa kugu dhacay hooyo? Maanta waxaa u muuqataa qof niyad jabsan. Wacalaykum asalaam hooyo. Wiil ayaa iskuulka igu dhibay magaciisana ma rabo in aan sheego. Waayo waxaan ka baqaa in ay xal igu noqoto haddii aan sheego magaciisa. Maasha Allah. Allah ku barakeeyo wiilkaygiiyow. Ma rabo in aad murugootid. Waxaan rabaa inaan kuu sheego arrin kale oo kugu dhiirigelin karta go'aankaaga wanaagsan, kuna farxad gelinaysa. Maxay tahay arrintaas? Ii sheeg hooyo. Wiilkayga Xasaanow, imaamkii la oran jiray Imaamul Bukhaari, weligiis qof ma uusan xaman. Sidee suurtagal ku tahay hooyo? Markii uu ogaaday in ay xantu xaaraan tahay, ayaa waxa uu go'aansaday in uu weligiis qof xamanin. Wuxuuna yidhi, waxaan Alle ka rajaynayaa in aan maalinta qiyaamo la iisoo istaajin xisaab ku saabsan xan oo aan ka nabadgalo dembigeeda. Subxaanallah. Gartay. Hooyo wax badan ma iiga sii sheegi kartaa? Haa wiilkaygiiyow, Imaamul Bukhaari waxaa la oran jiray Abu Cabdullaahi Maxamed bin Ismaaciil al-Bukhaari. Wuxuu dhashay sanadii 194 hijrada. Wuxuuna ku dhashay magaalada Bukhaara oo ku taala waddanka Uzbekistan. Isla markii uu dhashay wax yar kadibna waxaa dhintay aabihiis. Ma agoon buu ahaa hooyo? Haa wiilkaygiiyow, laakiin aabihii waxa uu ahaa nin aad u wanaagsan oo aqoonta cilmiga iyo axaadiista caan ku ah. Waxaa kaloo caan ku ahaa xalaal miiradka. Wuxuuna yidhi dhimashadiisa ka hor, 1 diinaar oo xaaraan ah ama shaki uu ku jiro xoolahayga kuma jiro, oo ula jeedo hantidayda oo idil waa xalaal. Hooyo, dhimashadii aabihii kadib muxuu sameeyey? Imaamul Bukhaari markii uu yaraa waxaa la ogaaday in uu yahay cunug aad u caqli badan oo aad u xifdis badan. Isagoo yarna wuxuu xifdiyey axaadiis aad u tiro badan. Markii ay da'diisa gaartay 16 sano, wuxuu aaday xajka. Wuxuuna raacay hooyadiis iyo walaalkiis. Markii ay acmaasha xajka guteenna, wuxuu hooyadiis ka codsaday in uu Mako iska joogo oo uu cilmiga ku sii barto, naftiisana ku sii horumariyo. Hooyadiisna waa ay ka ogolaatay. Ma Maka keliya ayuu wax ku bartay mise meelo kale ayuu sii aaday? Xoogaa aan saas u badnayn ayuu joogay Mako, kadibna wuxuu sii aaday Madiina, Shaam, Masar, Bagdaad iyo meelo kale oo aad u tiro badan si uu cilmiga uga soo barto. Kadibna wuxuu bilaabay inuu kitaabo qoro isagoo jira 18 sano. Cajiib. Kadib maxaa intaa xigay hooyo? Imaam Bukhaari waxa uu ahaa nin aad u salaad badan, sidoo kale salaada aad ugu dhex khushuuca oo ku daaha. Subxaanallah. Waan gartay. Kitaabada uu qoray kutubkee ugu caansanaa hooyo? Kitaabadii badnaa ee uu qoray Imaam Bukhaari, kitaabka ugu caansan waxaa la yiraahdaa Saxiixul Bukhaari. Waxa uuna kulmiyey axaadiis aad u tiro badan oo gaaraysa 7500 oo xadiis. Wuxuuna qorayay muddo dhan 16 sano. Xadiis kasta oo uu ku dhigo kitaabkiisana wuxuu ka hormarin jiray qubays iyo 2 ragcadood oo salaatul istiqaara ah. Wuxuuna qaadan jiray xadiiska saxiixa ah oo keliya. Taas ayaa waxay ka dhigtay kitaabkiisa Saxiixul Bukhaari inuu noqdo kitaabka ugu ansaxsan ee ku soo xiga Quraanka Kariimka ah. Meeqa sano ayuu noolaa hooyo? Imaam Bukhaari waxa uu dhintay 256 hijriyada. Wuxuu xilligaas jiray 62 sano oo uu dhammaantood ku soo qaatay inuu cilmiga barto iyo inuu dadka baro. Markii uu dhintay ee la duugay qabrigiisa waxaa ka soo udgay caraf aad loola yaabay oo ka udgoon badan miskiga. Allah u naxariisto Imaam Bukhaari iyo culimmadii muslimiinta oo idil.